asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa mar kale iyo muuqaal cusub. waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabto, nabadna aad ku sugan tahay. muuqaalkan waxa uu ku saabsan yahay sida loo qarsado friendiska facebooka ama saaxiibadaada facebooka ku leedahay, sida looga qarsado dadka kale oo looga dhigto only me, si marka privacygaagu uu noqdo safety oo aan dadka kale u arkin. Okay, marka ugu horeysa facebook ayaan gelaynaa si aan markaasi u ogaano inay noo qarsoon yihiin iyo in kale. marka ugu horeysa facebook baad soo geli doontaa, qaybtan waxaad ka eegi doontaa markaasi friendiskaaga. halkan friendiskaaga ayaa markaasi kugu jira. Okay, waxa aad tegaysaa markaasi settingka si aad markaasi u qariso friendiskaaga markaasi iyo asxaabta kugu jira facebookkaaga ee markaasi halkaasi aad ku kulantaan. qaybta settingka ayaan tegi doonaa. qaybta settingka marka aad timaado waxaad iman doontaa halka ay ku qoran tahay markaasi privacy settings ay ku qoran tahay. privacy settings halka ay ku qoran tahay baad iman doontaa. halka marka aad timaado, halkan markaa waxaa ku jira waxyaabo fara badan oo markaasi u baahan inaad banaanka keentay inaad qarsato. Okay, halkan waxaa ku qoran markaasi who can see your future posts, postooyinkaaga mustaqbalka yaa arki kara. sidoo kale markaasi yaa arki kara wixii waxyaabihi aad dhigtay waqtiga lasoo dhaafay. sidoo kale yaa arki kara markaasi friend requests, markaasi asxaabta kusoo codsatay sidoo kale yaa arki kara. halkana waxaa ku qoran who can see your friend lists. marka listiga asxaabtaada meesha kugu jira yaa arki kara weeyaan. sidoo kale xaggan hoose waxaa ku yaala who can look you are using the email address you provided, yaa arki kara gmailkii ama emailkii aad ku samaysatay facebookkaaga ama aad ku isticmaasho imika. sidoo kale lambarka aad ku isticmaasho yaa arki kara. waxyaabahaasoo dhamma markaasi halkan ku qoran. Okay, ta inu socono waa tana. halkan markaasi ku dul dhufan doontaa friend list ay ku qoran tahay. who can see your friend list ay ku qoran tahay. halkan ugu sareysa waa public oo cid waliba arki kartaa. halkan ugu sareysa waa friends oo asxaabta oo kaliya arki kara. halkan markaasi saddexaad waa friends accept, asxaabta adigoo aad oo ogolaato ma arki karta. sidoo kale halkan waxaa ku yaala hoose only me, aniga oo kaliya. only me, aniga oo kaliya. sidoo kale halka dhexda waxaa ku yaala specific friends oo asxaab khaas oo adigu markaasi adigoo aad goshahay. Okay, only me baad ka dhigan doontaa marka si aanay cid kale kaaga arkin oo keligii adigoo aad u aragto. aniga keligii ba arki kara weeyaan, qof walba saaraysa only me baad ka dhiganaysaa si markaasi cid kale aanay u arag. only me aad ka dhigaysaa halkaasi markaasi safety ay kugu noqonayso. sidoo kale halkan hoose gmailkaaga ama emailka aad ku isticmaasho yaa arki kara. inta badan halkan waxaa markaasi ay ku wanaagsan tahay in aad qarsato, in aad markaasi qarsato ayay ku wanaagsan tahay. oo gmailkaaga ama emailka aad ku isticmaasho haddii markaasi uu banaanka yaalo ama la arki karo in lagu soo tarakan karayo ama facebookkaaga in laga jabsado ama waxaasoo dhan ba dhici kara. marka waxaa fiican inaad qarsato oo only me baad ka dhigaysaa. sidoo kale lambarka aad kugu isticmaasho ama meesha kugu qoran isagana sidoo kale only me baad ka dhigaysaa si aanay cid kale u arkin oo markaasi waxaagu ay safety kugu noqdaan. okay, only me baad lambarka ka dhigaysaa si markaasi cid kale aanay u arag. sidoo kale emailkana isna sidoo kale waxaad ka dhigaysaa only me. only me baad isagana ka dhigaysaa halkaa hoose si aanay markaasi cidi kaaga arag, facebookgaagana aan lagaaga jabsan. inta badanna waxa ay dhibaatadu ka timaada ay dadku ka cawdaan marka ay leeyihiin facebook bana laga jabsanaya ama markaasi wana loo cagajugleynaya ama waxyaabahaasoo dhan ba dhacaya. meelahan oo dhan ba furan oo markaasi gmailka wixii ku isticmaalayeen ciwaankii kusoo galayeen waa public. sidoo kale lambarkoodu waa public. wixii oo dhan ba wada public bay noqonayaan. marka waxaa suuragal ama fudud in facebookgii lagaa jabsado, dadkiina markaasi ay saa ugu suurto gashay inay dhacaan facebookgaagi. marka meelahaasoo kale only me baad ka wada dhigi doontaa si markaasi cid kale aanay kaga arag oo keligaa markaasi ay khaas kugu ahaato. waxyaabaha privacyga ayay kamid tahay. marka waxaan rajeynayaa inaad muuqaalka ka faa'iiday. sidoo kale aad qarsan doonto asxaabtaada iyo emailkaaga iyo phone numberkaaga haddii public ahaan jirin awal hore. haddaad muuqaalka ka faa'iiday like saar, tan iyo muuqaalka dambe tasugima doono nabaday.